الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada caalamiga qabeel.com. shabakada caalamiga qabeel.com waxaan ku baran doonaa casharo ku saabsan Cyberlink Power Director 15. Cyberlink Power Director 15 oo howlihiisu ay fara badan yihiin, hadba in ayaan ka soo qaadan doonaa insha Allah taala. marka hore sida caadadeena ahaan jirtay ama hore u soo baranay, waxaad furaysaa Cyberlink Power Director oo kaasa click waxa ku soo baxaya intaas oo option. halkan waxaa nagu qoran full feature editor, easy editor, 360 editor, express project, team designer and slider iyo wixii la mid ah. marka hore kolba qayb ayaan baran doonaa. qaybta ugu horeysa aan baranayna waxay noqonaysaa full feature editor. click full feature editor wuxuu noo soo saaray qaybtan. bacdimaan barashadii hore ku jirno, marka hore waxaan eegaynaa halkan waa capture-kii, halkan waa editor-kii, halkan waa import media, wixii aad u baahan tahay aad soo dhiganaysid media ah. mediaas oon hore usoo sheegnay ama casharo hore aan kusoo qaadanay oo ahayd picture, audio iyo qoraallo iyo wixii la mid ah. qaybtan oo ah plugins, qaybtan oo ah media center, qaybtan oo ah video, picture, audio, qaybtan oo ah iyadana library, iyo qaybtan oo ah wixii aad doonaysid ama aad ka doonaysid inaad raadiso library-ga. qaybta kale waa effective, qaybta kale waa PIP, macnaheedu PIP, picture in picture, iyo qaybahan kale oo fara badan oo mid aan u baran doono. qaybtaas oo ah qaybta filekii, editorkii, viewerkii, playbackii iyo wixii la mid ah. casharkeedii koowaad intaas aynu joogo. waa injineer maxamed cabdullaahi macdee oo idin leh fi amaanillah iyo casharadeeda kale bixiya.